tobaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid macallin Zinedine Zidane ayaa daneynaya in uu la soo wareego xidiga kooxda kubadda cagta ee Chelsea N'Golo Kante asagoo sheegay in ay ku dalban doonaan dulcageed gaariya 70 milyan oo lacagta banka oo dollaraan u dhiganta 86 milyan. wiilka u dhashay wadankaasi Faransiiska N'Golo Kante oo ka dhex booqanaya qadka dhexe kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa macallin Zinedine Zidane waxa uu arkaa aragtidiisa in ciyaaryahankaasi uu ku xoojiyay qaybtiisa qadka dhexe maadaama laacibkani uu ku tilmaamay inuu yahay xidig ku wanaagsan inuu ka soo dhex muuqdo garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. wiilka reer Faransa N'Golo Kante ayaa sidoo kale aad loola xiriirinaya kooxda kubadda cagta Juventus ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga balse Zinedine Zidane ayaa kalsooni buuxa ku qaba in ciyaaryahankaasi uu qalmo adduun dhan 70 milyan in markaa Real Madrid ay kula soo wareegto maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qorsheynaysa in ay xoojiso qaybteeda qadka dhexe. N'Golo Kante wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda xilligan macallin Zinedine Zidane uu doonayo in qaybtiisa qadka dhexe marka uu ku buuxiyo. waxaan qorsheyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan in la xoojiyo talaabana loo qaado wiilka reer Faransa N'Golo Kante. Zidane oo u waramay jirada Spain ayaana markaa shaacinaya in muhiimadiisu ay tahay marka hore in Real Madrid laga daboolo baahida ka haysato qaybta qadka dhexe. waa muhiim in N'Golo Kante marka uu yimaado kooxda kubadda cagta Real Madrid ee horyaalka Spain. kooxda kubadda cagta Inter ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga ayaa lagu wargeliyay in ay bixiyaan dulcageed gaariya 25 milyan oo lacagta banka oo dollaraan u dhiganta 30 milyan in ay markaa gabi ahaanba la wareegaan milkiyada wiilka reer Chile Alexis Sanchez oo si amaah markaa kula joogo kooxda Inter ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga. kooxdani Manchester United ayaa markaa diyaar u ah in Alexis Sanchez marnaba uusan ku soo laabanin stadia Old Trafford waxaana ay sheegeen inay fursad u tahay kooxda reer Talyaani Inter Milan maadaama kooxda kubadda cagta Manchester United kaliya ay dalbanayso adduuncageed gaariya 25 milyan oo lacagta banka in ay gabi ahaanba kaga samrayaan wiilka reer Chile Alexis Sanchez oo musharaad aad u fara badan ka qaadanayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Sanchez ayaa toddobaadkayna ka soo gudubnay waxa jirada Toto Sport uu u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Inter Milan asagoo muhiimadiisa marka laga dheehan karay in Sanchez uu doonayo gabi ahaanba inuu soo ku laabanin horyaalka Premier League waxaana laga warsugi doonaa in ay jawaab ka bixiyaan kooxda Inter Milan qiimaha Manchester ay doonayso Alexis Sanchez in ay markaa ku fasaxaan. labada tababare ee kala ah Jose Mourinho iyo Massimiliano Allegri ayaana markaa u sharaxan hogaanka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur kadib markii macallin Pochettino la sheegay in uu u dhow yahay ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. maxaa yeelay madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waxa ay leeyihiin xilli ciyaareedkani waxa muuqanayso in hoos u dhac hoogan marka uu ku yimid qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur sidaas darteed waxa ay doonayaan in kooxda kubadda cagta Tottenham ay iska fasaxaan macallin Pochettino oo dhawaan loo gacnahatinayay kooxda kubadda cagta Real ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka. labadan tababare ee Massimiliano Allegri iyo Jose Mourinho ayaana markaa loo arkaa inay noqon karaan bedelka macallin Pochettino. warbaahinada wadankaasi Ingiriiska ayaa hadal haya in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Pochettino ay ka go'an tahay in markaa uu macsalamayo waayaha mustaqbaleed ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. aragti ahaan waxay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ay eeganayaan oo kaliya Jose Mourinho iyo Massimiliano Allegri oo u arka in labadaasi macallimood ay yihiin labada tababare kaliya ay u qalmaan in ay markaa hogaamiyaan kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. labada kooxood ee kala Arsenal iyo Chelsea ayaa si weyn waxay u baadi goobayaan da'yarka kooxda Anderlecht ee Jeremy. laacibkani ka tirsan kooxda kubadda cagta Anderlecht ayaa waqti wacan ku bilowday kulamadii ugu saftay kooxda kubadda cagta Anderlecht waxaana ay u arkaan labadani kooxood ee ka dhisan Premier League in da'yarkaasi u dhashay wadankaasi Belgium ee Jeremy in uu yahay ciyaaryahan mustaqbal ku leh xifrada kubadda cagta waana laacib markaa mustaqbalkiisa ee ku soo bandhigi kara horyaalka Ingiriiska. labadani kooxood ee Arsenal iyo Chelsea ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha sida weyn kaga dhex muuqanaya markii loo eego horyaalka wadankaasi Ingiriiska waxaana ay doonayaan 17 jirkan u dhashay wadankaasi Belgium ee Jeremy in uu yahay xidig markaa ku wanaagsan in uu usoo dhaqaaqo garoomada Emirates ama gigada Stamford Bridge. Manchester City waxay gabi ahaanba ay meesha ka saareen wararka ay sheegayaan xiiso weyn in ay u qabaan xidiga Martin Odegaard. laacibkani ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid oo u dhashay wadankaasi Norway ayaa markaa la sheegay in aad ay u xiiseynayso kooxda kubadda cagta Manchester City oo doonaysa inay markaa
uu buuxiyo booska David Silva uu isaga dhaqaaqi doono kooxda Manchester City xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado. waxaana kooxda kubadda cagta Manchester City ay sheegeen kaliya inaysan u baahnayn inay xoojiyaan markii loo eego qaybta qadka dhexe, waxaana ay xuseen in waqtigan xaadirka aysan u qorshaysnayn inay marka la soo wareegaan xiddigaasi Martin Odegaard. waxaana kooxda kubadda cagta Real Madrid oo hore ciidaankani ugu dalbatay adduunyageed gaaraya 170 milyan oo lacagta banka ah, balse waxay waqtigan xaadirka Manchester City ay iska fogeynaysaa sheekada ku aadan in January ay u dhaqaaqi doonaan xiddigaasi Martin Odegaard. waxaa laacibkani baadigoobaya dhowr kooxood ee ka dhisan Premier League, balse City gabi ahaanba way ka gacan taagatay, waxaana ay xuseen maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City in sidoo kale ay u qorshaysan tahay bartilmaameedyo kale ee kooxaha ka dhisan tartamada qaaradaasi Yuruba. wariyaanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Harry Kane waxa uu leeyahay anigu xaqiiqdii waxaan diyaar u ahay inaan markaa isbedel xoogan ka sameeyo kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. maxaa yeelay warbaahinada qaar ayaa baxusay in Harry Kane uu u dhow yahay ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur, laakiin sheekadaasi way isbedeshay. Harry waxa uu leeyahay xaqiiqdii waxaan aad u jeclahay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur, mana jirto koox aan markaa xiriir gaar ah la sameeyay, waayo weli waxaan ahay ciyaaraan ku qanacsan mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. runtii aad ayaan u jeclahay dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur, mar walbana waxaan rajeynayaa inaan kooxda guulo kala duwan aan la gaari doono. Harry Kane ayaa muddo aad u fara badan waxa aad u baadigoobaysa kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo sidoo kale kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain. hase yeeshee waxaa sidoo kale soo baxay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Premier League oo ayana baahi u qaba xiddigaasi Harry Kane inay gacanta ku dhigaan haba ugu horeysa kooxda kubadda cagta Liverpool. waxaana weeriyaankani ka tirsan kooxda kubadda cagta Tottenham ee Harry Kane ugu dambeyn uu sheegay inaysan xilligan uu ku dhawaaqi karin mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, kaliya uu xaqiijiyay in ciyaaraanku weli uu ku qanacsan yahay kooxda Tottenham Hotspur. Arsenal waxay u dhaqaaqday daayarka kooxda kubadda cagta ee Celtic ee Karamoko Dembele. laacibkani mucjisada xoogan la soo baxay, da'diisu waa 16 jir, waana ciyaaryahan aad ugu wanaagsan markii loo eego habka uu xariiqayo kubadda. waxaana maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal ay sheegeen in ciyaaryahankaasi uu yahay mid il gaar ay ku hayaan oo ay doonayaan in ay u soo dhaqaajiyaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska. qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany ayaa si gaar ah u daneynaya xiddigaasi Karamoko Dembele, maxaa yeelay waa da'yar mustaqbal dheer ku lahaan kara kubadda cagta, waana xiddig mucjiso leh marka uu kubadda xariiqayana waa ciyaaryahan si weyn ay u soo jiita dhammaan taageerayaasha. kooxda kubadda cagta Celtic ayuu si weyn ugu soo barbaaray xiddigani, balse waxa uu aad u soo jiidanayaa kooxaha waaweyn ee ka dhisan tartamada kala duwan ee qaaradaas Yuruba. kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ka mid tahay 12 kooxood ee sida gaarka u daneynaya xiddigani kooxda Celtic ee Karamoko Dembele, maxaa yeelay waa ciyaaryahan had iyo jeerba kooxaha kale ee ka dhisan qaarada Yuruba ay haminayaanba in ay la soo wareegaan. Lukaku waxa uu leeyahay ma ahan guul darada aan kala kulanay kooxda Juventus inay ka dhigan tahay in Juve ay ku guuleysanayso horyaalka wadankaasi Talyaaniga xilli ciyaareedkani. kulankii adkaa ee labada kooxood ee Inter Milan iyo Juventus u dhaxeeyay ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, iyadoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay qaybta hore soo bandhigeen ciyaar si weyn ay u jecleysteen taageerayaasha kooxda Inter Milan, balse waxay ka farabaxsatay qaybihii ugu dambeeyay. waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ugu dambeyntii looga adkaaday 2-1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Juventus oo markaa hoggaanka la wareegtay horyaalka wadankaasi Talyaaniga. haddaba toddobadii kulan ay ciyaartay kooxda Juve waxa ay leedahay 19 dhibcood. Inter Milan oo guuldar markaa la kulantay waxay leedahay 18 dhibcood, hal dhibac oo kaliya ay markaa hoggaanka ku haysaa kooxda Juventus. Lukaku wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay in weli horyaalka uu yahay mid bilow ah, waxaana sidoo kale kalsooni buuxa ku qabaa in Inter Milan sanadkani uu yahay sanadkii ay ku guuleysan lahayd horyaalka wadankaasi Talyaaniga. sheekadana Lukaku waxa uu ku tilmaamayaa in ay ahayd mid nasiib ah guuldaradii ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta Juventus. waxaan sugi doonaa wajiyada kale markii loo eego tartamada kale aan isaga hor imaan doono horyaalka wadankaasi Talyaaniga. rajo waliba waxaan kalsooni ku qabnaa inaan markaa xoojino sidaan dhibco aad u fara badan u keeni lahayn si ay kooxda Inter Milan u qaado horyaalka wadankaasi Talyaaniga iyo koobabka kale ee laga ciyaarayo gudaha wadanka Talyaaniga. xiddiga kooxda kubadda cagta Chelsea Christian Pulisic ayaana markaa rajeynaya sanadka cusub in si amaah uu kaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Chelsea. waxaana la xusay in wiilka kan u dhashay wadankaasi Mareykanka Christian Pulisic uu ilaa hadda uu ku jahwareersan yahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Chelsea. waxaana la leeyahay wiilka Mareykan ee Christian Pulisic in uu ka dalbanayo madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Chelsea in si amaah sanadka cusub uu kaga dhaqaaqo gigida Stamford Bridge.
لاعبكاني oo dhawaan ka soo ambabaxay kooxda kubadda cagta Borussia ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany Pulisic ayaana marka wuxuu leeyahay xaqiiqdii waxaan doonayaa inaan marka ka howbadisho kooxda kubadda cagta Chelsea si amaha maxaa yeelay waxaan xilligaani aaminsanahay inaan boos joogto ka heli doono gegada Stamford Bridge tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard ayaana marka u muuqanaya inuusan siin karin wiilka reer Mareykan ee Christian Pulisic booska joogtada maxaa yeelay wuxuu daayirkan uu doonaya mar walba inuu ka soo dhax muuqdo ciyaartooyda ugu horeeya ee safka kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana u muuqanaysa wiilka reer Mareykan ee Christian Pulisic inuusan fursadaasi siin karin Frank Lampard oo hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Chelsea Manchester United ayaa sidoo kale waxay u dhaqaaqaysaa laacibka kooxda kubadda cagta Lyon Dembele laacibkan u dhashay wadankaasi Faransiiska ayaa horey ugu guuldareysatay Manchester United Musa Dembele ayaa sanadka ka dambeeya waxa aad u baadi goobaysa Manchester United waxaana ay u muuqan doontaa weeryahankan ka tirsan kooxda kubadda cagta Lyon mid u soo dhaqaaqi karo Stadio Old Trafford ee kooxda Manchester United waxaana loo sababeynayaa xidigan Musa Dembele ayaa shakhsiyan aad u doonaya inuu ku biiro Stadio Old Trafford ee kooxda Manchester United fursad wacan ay u tahay kooxdan Man oo ay doonayaanba in ciyaaryahankaasi ay ku dhaxarkaan kooxda kubadda cagta Man garoonkeeda sidoo kale xidigan Musa Dembele waxa ayna baadi goobaysa ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska tababarihi hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Arsene Wenger ayaa markaa rumaysan in xidiga qadka dhexe kooxda Manchester United ee Paul Pogba uusan saameyn ballaaran ku yeelan doonin kubadda cagta waxaana uu sababeynaya in ciyaaryahankani oo markaa yahay xidig inta badan dhaawacyadiisa soo lablaabtay waana laacib ka muuqanaysa marka uu ku dhex jiro garoonka inuu aad markaa u daalan yahay tababare Arsene Wenger ayaana markaa sheegay in xidigani oo reer Faransa ee Paul Pogba u baahan yahay nasiino aad u fara badan waxaana uu sheegay in xidiga haddii ay ka go'an tahay in kooxdiisa guulo uu la gaaro marka hore waa in la nasiyaa kulamada kale ee caadiga ah ee kooxda marka ay ciyaareyso waxaana sidoo kale uu sheegay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger oo u warramay jirada Ben Sport in xidigani Paul Pogba laga dareemayo in uu ka nigajo mustaqbalka kooxda kubadda cagta Manchester United in badan waan la soconaa sida warbaahinada markay u hadalhayaan xiriirka ka dhaxeeya macallin Zinedine Zidane iyo Paul Pogba waxaana sidoo kale uu leeyahay macallin Arsene Wenger xaqiiqdii sida uu ku socdo Paul Pogba waqtiga ka xaadirka ma ka dhigi doonto in ciyaaryahankaasi uu ku soo bandhigay xifradiisa kubadda cagta tartamada kala duwan ee laga ciyaaro qaaradda Yurub mana gaari doona hadafkiisa uu doonayo in uu ka gaaro footballka sida marka uu sheegay tababare Arsene Wenger waxaana tababare Arsene Wenger uu ku tilmaamaya waa in labada dhinac laga fiiriyo ciyaaryahanka mar waa ciyaaryahan aad u daalan marna waa ciyaaryahan haminaya in koox kale marka uu ku biiro sidaas darteed waa inay kooxda kubadda cagta Manchester United ilgaar ay ku haysaa xaqiiqdii Pogba haddii uu doonayo inuu sumcad weyn ku sii yeesho kubadda cagta inta uu ciyaari karo waa in uu sameeyo isbedel iyo xarakaad marka soo jeedin kara maamulka kooxdiisa iyo taageerayaal aad u fara badan sidoo marka uu ku heli lahaa ugu dambeyntiina tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaana gabi ahaanba sheegay in uu dalbanayo in garoonka laga fasaxo xidiga Luka Jovic لاعبكان ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markaa macallin Zinedine Zidane waxa uu arkaa in ciyaaryahankan uusan waxba ku soo kordhin karin kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda Real Madrid ayaa wiilkan u dhashay wadankaasi Serbia Luka Jovic waxay kula soo wareegtay adduun cageed gaariya 60 milyan oo lacagta euro-ga xilligaas uu ka soo ambabaxay kooxdii ka dhisan wadankaasi Germany ee Frankfurt Luka Jovic ayaana markaa u muuqan doona in uu si amaha kaga dhaqaaqi doono kooxda Real Madrid bisha January ee sanadka foodin ugu soo haya 2020 Zinedine Zidane ayaana markaa ka dalban doona madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez in arintani la hergeliyo si xidigaasi Luka Jovic lagu diro si amaha garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid inta uusan ku soo biirin kooxda Real Madrid Luka Jovic waxa baadi goobaya 8 kooxood ee markaa ka dhisan horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska balse ugu dambeyn waxa uu soo dhaqaaqay kooxda Los Blancos ugu dambeyntiina waxa ku dhacay niyad xooggan mar hadiiba kooxda Real Madrid ay diyaar u tahay si amaha inay sanadka cusub iskaga diraan ayadoo fursad wacan uusan ka heli doonin garoonka Santiago Bernabeu